Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadli doonaa Salmaan Rashiidi. Hadaba kusoo dhawaada channelkayga. Salmaan Rashiidi magaciisa oo saddexan waa Ahmed Salmaan Rashiidi. Waxa uuna ku dhashay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya sanadkii 1947 19 bishii Juun. Haddaba waa nin 75 jir ah oo haysta dhalashada Ingiriiska. Sidoo kale waxa uu haystaa dhalashada Mareykanka. Shaqadiisu waxay ahayd qoraa iyo sidoo kale professor. Waana nin qoray buugaag badan oo sheekooyin ah. Waa aabe dhalay 2 caruur ah. Sidoo kale waxa uu guursaday 4 xaas xilliyo kala duwan. Rashiidi waxa uu dhigtay iskuulka loo yaqaano Cathedral and John Canon School oo ku yaala koonfurta magaalada Mumbai. Sidoo kale inta uusan u wareegin wadanka Ingiriiska waxa uu ku biiray iskoolka Rugby School. Kadibna marka uu tagay wadanka Ingiriiska waxa uu galay jaamacadda Cambridge iskoolka ama college-ka King's College. Waxa uuna bartay cilmiga taariikhda oo uu ku takhasusay. Ninkan oo aad arkaysaan sida magaciisa oo ka turjumayo waxa uu ka soo jeedaa qoys Islaam ah. Kadib markii uu jaamacadda dhameystay waxa uu ku laabtay wadanka Pakistan oo ay qoyskiisu u soo guureen. Halkaas oo uu kula noolaa muddo qoyskiisa. Intaas wixii ka dambeysay ilaa 2000 waxa uu ku noolaa wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada New York. Rashiidi waxa uu qoray buugaag badan oo u badan sheekooyin. Ninkan oo sheekooyin badan qoray waxa uu ku guuleystay sanadkii 1981 buuggii ugu fiicnaa adduunka la qoro. Buuggaas oo ahaa sheeko loo yaqaano Midnight's Children. Balse buug uu qoray 1988 oo la dhaho Satan's Verses oo uu ula jeedo aayadaha shaydaanka. Kaas oo uu ka qoray ama uu ula jeeday kitaabka Quraanka ah iyo kalaamka Alle oo ku aflagaadeynaya ama wax ugu geysanaya aflagaado uma geysan karo. Karaamo iyo sharafna waxay ahaatay kitaabka Ilaahay korkiisa. Balse buuggaas erayo badan oo ku qoran ayaa waxa dhibsaday ama ka carooday ummad badan oo Islaam ah. Buuggan haddaba waxaa ka carooday dadka Islaamka ah adduunka ku nool oo dhan. Waxaa dhacay mudaharaado badan wadamo badan oo Islaamku uu ku badan yahay. Waxaana laga mamnuucay 13 dal oo adduunka ka mid ah: Iran, India, Bangladesh, Sudan, South Africa, Sri Lanka, Kenya, Thailand, Tanzania, Indonesia, Singapore, Venezuela iyo Pakistan. Waa laga mamnuucay, lagumana iibin, lagumana soo bandhigin toona maadaama uu ka hadlayay buuggan Islaamka iyo Rasuulka Alayhi Salaatu Wasalaam iyo aayadaha Quraanka ah maadaama uu wax ka sheegay. Haddaba buuggaas daraadiis ayaa waxa ka dhashay in loogu hanjabo dil. Sidoo kale Ayatullahgii Iran Ayatullah Ruhollah Khomeini ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la dilo sanadkii 1989 balse Iran dib ayay uga laabatay mar dambe in ay ku xukunto dilkaas. Balse madaxiisa waxa la dul dhigay in badan malaayiin dollar si loo dilo cid soo dishana in la siiyo malaayiin dollar. Intaas wixii ka dambeeyay ninkan waxa uu ku noolaa wadanka Mareykanka waa uuna isqarinayay isaga oo samaystay ilaalo iyo guryo gaar ah oo waxa la sheegayaa in bilba bisha ka dambeysa uu guri gaar ah ninkan ku noolaan jiray. Balse maalnimadii Jimcaha ayaa waxa lagu weeraray Torrey meel uu ka jeedinayay khudbad magaalada New York. Dhaawaciisana aad buu u daran yahay, waa dhaawac khatar ah. Waxa uu dhaawac ka soo gaaray dhuunta iyo caloosha. Ilaa haddana xaaladiisu aad bay khatar u tahay. Waxaana lagu dabiibayaa isbitaalada ku yaala wadanka Mareykanka. Waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa inuu Ilaahay diintiisa u argudo iyo rasuulkiisa suuban. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin oo idin